السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد waxaan kooyo 20 xageeyga warkan waa warkii koobaad bal aynu ku bilbilaabano xuutiyiinta oo sheegay in Sacuudiga iyaguna cunaqabateyn badeed saareen soo Mareykanka cunaqabateyn badan Iiraan mu saarin iyagu waan ku sheegay halkan Iiraan ay u baahan tahay inay move smart ciyaarto habeenka horaan ku dhahay xuutiyiinta halka badda xidho reer Yurub waa diyaar NATO waa diyaar dagaalka NATO way soo galaysaa baan ku laakiin smart move bay ciyaareen waxay yiraahdeen waxaanu beegsanaynaa baakhiraadka amba maraakiibta Sacuudiga u socota kana imanaysa tagaysa yambuc marka waa halkan Sacuudiga ku wareegay marka Sacuudigu labada badoodba badda Hormuz ku jeeda iyo badda Casba shidaalka uu ka dhoofiyaa waa in sheego dhuun dheer buu sameystay sagaashamaadkii dagaalka hore markuu dhacay dhuuntaasi 1.7 bilyan birmiil oo amba foosto shidaal dheeri dhex marta kadibna halkan uu ka dhoofiyaa marka shidaalka Yurub tagayna toos u baxay wuxuu maraa dhinaca iyo meesha la yiraahdo Masar wuxuu maraa Suez kii Chinaha iyo Asia tagayna inaguna soo hormarayo xagga laantu marayo xaggaas uu marayo saas uu hoos marayo halkaas uu India ka galaa kadibna dhexda xuutiyiintu fadhiya oo Yemen fadhiya marka waxay yiraahdeen shidaal maraya dhinacan soo marayo xaggan Asia u baxaya iyo mid Asia ka soo socdo Sacuudiga tagaya toona ma jiro cunaqabateyn baanu saarnay imikaanay dhaqan galaysa cunaqabateyntaas waa smart move ay ciyaartay Iiraan iyo xirteedii oo ah in aanay isku wada xidhin badii Baabul Mandab si aanay u siin diraacad amba aanay green light u siin inay reer Yurub dagaalkii soo galaan waayo reer Yurub waxay lahaayeen ii sheeg muxuu ahaa waa Chinese qoriyo noo banaan inaanu adeeg iyo badeecadayda noo marto in Baabul Mandab noo furan yahay anaga marka hore Hormuz shidaal baan oogay bajir laakiin badeecada Yurub iyo Asia is wadaarsanayso Baabul Mandab maris in kastu Baabul Mandab uu leeyahay badiil kale oo hadii uu xidhmo xataa loo bedeli karo laga soo wareegi karo dhinaca South Africa halku gumaystu barigii hore soo maray intaan la furin Suez haddana waa meel laga goyanayo maaha yani waa laba laab oo intaas usbuuc baa ku kordhaysa oo kharashka kordhayo oo shidaalka kordhayo meel laga goyan kara maaha bal hadda baan isleegna falanqayntii khabiirkii jaziira u fadhiyay sidoo u falanqaynayo arrintan iyo bal wuxuu arrintan ka yiri aynu isleegno هذا الإعلان اللافت لما له من قراءات وتداعيات في هذه المرحلة طبعا غنوة طبعا هذا nooga warbar الإعلان kan iyo wuxuu maaragtay arrintan ay daba socoto iyo bal waxay dhibaato keeni karto nooga waran الإعلان ربما يعني كان إذا أراد الإنسان أن يتوقع ما الذي سيحدث في البيان الحوثيون بالأمس تحدثوا عن هذا البيان كان التوقع طبعا أن يكون جزء منه باب المندب ilaa shalay baa la sugayay wuri bayaankan ay xuutiyiintu lahaayeen bayaan baanu soo wadnaa laakiin waa la fahansanaa inaanay wax kale ka hadlayn ay ka hadli doonaan baabul mandab السعودية لا يمكن طبعا فصل هذا البيان أولا نريد أن نقرأه من حيث الشكل من حيث شكله طبعا هو مقدمة تحدثت عن ما سماه بحصار السعودية وتحدث عن الحصار سواء ما يتعلق بالطائرات أو بالاقتصاد أو بخارطة الطريق وكا سعودي يعني أنغنا waxaan soo noo qabatay anaguna cunaqabataynay haday daa'iraad tahay iyo haday maartay tahay sheeg cirka iyo haday badaba tahay yani soo Yemen Sacuudigu ma cunaqabatayn anaguna isagaan cunaqabataynay weey وكل هذه الأمور التي بدأ الحوثيون يهددون السعودية من قبل ربما أشهر ربما الشهر الماضي بدأت التهديدات بقوات التعبئة ببيان عبد الملك الحوثي waayo arrintan ilaa bilay soo socotay buuri oo ilaa bila ayaa hanjabaadahan iyo awoodihii la ururiyo iyo Cabdi Malik Alxuuti arrintan ka shakeeyay soo socotay ثم بأشكال متعددة كان آخرها الطائرة ماهان التي اخترقت الأجواء اليمنية iyo tii ugu dambeysay diyaaradii iyo laga lahaa Iiraan ee maanta soo degtay qasabka ku soo degtay oo iyaduna jabisay cunaqabatayntii Sacuudigu ku hayay xagga cirka ahayd يمن وبالتالي بدأ هذا البيان بالمقدمة الرئيسية وأعلن إعلانا صغيرا فقط وهو بدء الحصار البحري على المملكة العربية السعودية بدءا من هذا البيان إذن ملخص وحوي سعودي ولا قحري بدي لقى بلعبه مركن هذا كان يريد عسيري البيان يعني بكله هو بدء الحصار على البحري على المملكة العربية السعودية طبعا لا نستطيع يعني في هذه اللحظات ونحن في خضم كل هذه الحروب في المنطقة وفي العالم ما يجري في مضيق هرمز arrinta kale aan suurtagal ahayn waxa weeye in yani mashhadkan laga tafsiiliyo ama laga saari karo qisada weyn meesha ka socota yani arrintan waa arrin isla buuro dagaalka Iiraan daba socota marka arrin yani laga saari kara maaha سياق واضح بأن الحوثيين
يعني أصبحوا جزءا من هذا المشهد. كان خلال الفترات الماضية كان هناك أحاديث من وكالات الأنباء العالمية وحتى من بعض القيادات الإيرانية والمسؤولين الإيرانيين والمحللين الإيرانيين يقولون بأن إيران سوف تأمر الحوثيين ب يعني واي qodobka wuxuu leeyahay yani inay maaragtay Iiraan marka hore u soo fatafaxaydinaysa maadaama culaysku ku farabatay oo dagaalka ku farabatay oo maaragtay dagaalka si xun u dhaawacay waa la iska filanayay khubaro badan oo muxuu ahaa taxliiliye siyaasadda Iiraan iyo rag fara badan baa sheegay inay Iiraan talaabadan qaadi doonto inay baabul mandab amartay inay xuutiyiinta xidhoon القيام بعمل في الباب المندب وفي البحر الأحمر. أنا أعتقد طبعا بأن الحوثيين جمعوا بين العمليتين، بين خدمة يعني إيران في هذه المنطقة وبالسيطرة على باب المندب، والسعودية طبعا تعتبر من كبار مصدري النفط، والحديث حول السعودية واي وحوري حوتيين لبا أرين بوي سميين بوري إن دين نافتي السعودية حدان لن يقتصر فقط على السعودية، هناك دول كثيرة ستتضرر أيضا، لأن السعودية تصدر النفط إلى جميع أنحاء العالم. كنا درسوا دارين السعودية قدما سامين دون تبوري وحاول سامين دون تدمان دولته لما شدالك السعودية كقاعدين شرورا. بالتالي فهي تخدم إيران في هذه marka adeegto arrinta Iiraan bay ugu adeegaysaa oo culayska adduunka soo saarayay ayaa adduunkana soo fuulay waa culayska Iiraan rabtay in Mareykanka iyo adduunka ay fuulaan arrintaas بهذا الإعلان وأيضا تخدم مشروعها، ولكن ربما أنهم فضلوا أن يكونوا يعني فكرة معينة أو أن يكونوا طريقة معينة للدخول في باب المندب وفي البحر الأحمر. نحن عندما نتحدث عن باب يعني التصدير النفط السعودي وإعلان حظر البحري على السعودية، فنحن نتحدث عن البحر الأحمر وباب المندب، لأنه طبعا اليمن لديه حدود بحرية كبيرة جدا. way qisada isku soo duuduub wuxuu arrintan daba taalo badii casaydna inay xirantay iyaduna hadii si kale loo dhigo badii casaydna way xirantay مع السعودية. وأصلا كان المسؤولون الإيرانيون كنا نراقب في الفترة السابقة احتمالية تحريك أوراق استراتيجية تتضمن باب المندب والبحر الأحمر، ولكن ما طبيعة التحرك الذي سيقوم به الحوثيون وما يملكون من مقدرات balka warmay tiradawaadka ku xidhay maxay noqonaysaa yani awood sida u xidhayaan ma sawaariikh bay adeegsanayaan ma iyaga maraakiib kale ma laashash bay ku qabsanayaan yani ma raadaale haystaan bal technicality ay ku qabsanayaan wixii technical bal looga waran say meesha u qabsan karayaan. نفهم ما هو المتوقع. طبعا أنا كنت أقول منذ بداية فبراير أن دور الحوثيين كان يعني دور محسوب، وكان الحوثيين يحاولون أن يصعدوا بشكل محسوب حتى هذه اللحظة. طبعا أنا مثلا واقع xuutiyiintu inta badan way ka digtoonayeen inay maaragtay arrimahan faraha soo geliyaan hadday soo geliyaan si xisaabsan oo caqli ku dheehan yahay ay arrimahan u soo geliyaan xuutiyiintu buur. عندما قلت لك بأن هناك في قراءة في شكل البيان أنهم قالوا فقرة واحدة ولم يعلنوا تماما ما مستويات هذه العملية. kuna darso cilaankooda buuri dawaa si jumladun bay u warrameen detailska bay warramin sacuudigu baanu ka xidhnay badii bay yiraahdeen details hoose may gelin buur marka waxyaabo badan malkaan ku hoos jiro maadaama qofkaanu details ku siin de waxa laga yaabaa qaar kale inay yiraahdaan qalad bay ku dhaceen aan loo sheegin. يقومون بتهديد الناقلات النفط؟ هل سيقومون بتفجيرها؟ هل سيقومون بحصارها؟ ما يقبنيان ما يقرحنيان ما يسوق قاديان ما يسوق طوبنيان يعني كيفية دي ما يشيقين. من المعني؟ هل فقط الناقلات السعودية أم الناقلات التي تأتي من مناطق أخرى إلى السعودية؟ يعني بحاجة إلى تفاصيل. وكم السعودية ما تيمانة سامة تكبحيسا يعني سينغون يسوي. تفاصيل. أنا أعتقد بأن الحوثيين تركوا فراغا معينا لمحاولة طبعا كما قلت لك إرضاء يعني إيران، ولمحاولة أيضا النظر إلى المشهد بكامله. هم طبعا منذ أرنتا وحوسمي يقول إيران يكره لقليان وإمارة الضبابيات amba yani arrin aan la hubin ay uga dhigeen in cid walba maartay dhagaha taagto waa dhaga taagis weey laakiin protocol ay ku xanibayaan may sheegin. فترة وهم يحاولون ألا يصعدوا إلا بطرق محسوبة، يعني هناك طريقة محسوبة. هنا يعني اسمح لي، هل سيكون الأمر على شاكلة ما يقوم به الحرس الثوري في مضيق هرمز أي التنسيق معهم أم لا؟ واي balaarinta ka waran bay tar ma sida xaris sawriga rabaan in la soo hadlo la soo xiriiro oo meesha raadaala u yaalo waxa weeye anagu habkan marnay meesha in loo maraan rabnaa sida xaris sawriga ay Iiraan ay rabtay radaan in wadooyin mucaayana ay maraan baa la rabaa saasay rabaan bay tiri. الأمر مختلف. أنا
اعتقد يعني الان بعد ان اعلن الحوثيون انهم جزء من المحور الايراني، وبعد مجيء الطائره الايرانيه ماهان واختراقها الاجواء اليمنيه، والحديث من قبل الايرانيين باننا محور واحد، وان اليمنيين الحق في اختراق الاجواء وفي الطيران وفي الاقتصاد وفي الرواتب وفي كل هذه الامور، اعتقد اننا نتحدث عن محور واحد يفكر بطريقه. واسكو ايديون بوري واسكو فكرتي اسكو ايديا marka habka imka loo control doona baabulmada wuxuu noqon doonaa hab iyo fikrad lamida ahun ka lagu maamulayo hormus arrintan hadda waxay daba socotaa arrimihii ay baryahan soo soconay ma noqon doontaa mid effective oo shaqeysa oo sida iyagana ay leeyihiin meel gaarana soo mara iyo de hadda doontan cashuurba bixiya iyo miya adiga lagu digay iyo protocol aan la cadeyn iyo adigu khalkhalin ku socoton amniga dowrkan hadda wuxuu yaalaa yaa ka jawaabi doona kole sacuudigu soo hadlaya isagana sugina saacadaha soo socda arintana waa arrin tasciid oo ah in arrintii dagaalkii iyo hawshii sii balaaranayso laba laab sii noqonayso maadaama Iiraan markaa kumanka nagula wadaag wararka inta kale waa in soo wadaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.